ciidankii mucaaradka ee la magac baxay badbaadada koonfur galbeed sida kooxda al-shabaabna u dagaalama ayaa la soo warinayaa in dhexdooda hadda ay ku dagaalamayaan gudaha magaalada Buuraha Kaba oo ka tirsan gobolka Baay. hub la sheegay in halkaasi la geeyay ayay dhinacyadu isku qabsadeen waxaana halkaasi ka socda dagaal qaraar oo sababay dhimasho iyo dhaawac inkastoo warbaahinta laga qariyay haddana ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxay ii sheegeen maleeshiyaadka halkaa lagu dhigay in ay hub isku qabsadeen maadaama aysan weligood arkin qoriga shanshuutarka la yiraahdo oo ay muddo ku dagaalamayeen qoriga AK47 nin la sheegay isla markaana lagu magacaabay inuu yahay Xasan Eelay ayaa goobta ka baxsaday isla markaana u cararay dhinacaas iyo koonfurta Buuraha Kaba waxaana warar kale helaya ay tilmaamayaan in Xasan Eelay uu ka cabsi qabo in halkaas lagu toogto maadaama uu foolaad u yahay rag loo adeegsanayo burburinta dawladda koonfur galbeed Soomaaliya sargaal sare oo ka tirsan ciidanka dawladda koonfur galbeed ayaa wuxuu sheegay maleeshiyaadka ku sugan magaalada Buuraha Kaba in xaaladoodu hadda ay tahay allow sahal oo iyagu ay isku soo jeesadeen isla markaana laga cabsi qabo inay toos isku farasaaraan haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto dad badan waxay aaminsan yihiin maleeshiyaadkii lagu daabulaya Buuraha Kaba qaar inay isku dhiibi doonaan kooxda al-shabaab qaarna ay isku dhiibi doonaan dhinaca dawladda koonfur galbeed sababtoo ah baadka iyo biyaha iyo rasaasta ayaa laga go'doomiyay waliba aan ku xasuusiyay asgariga ka tirsan maleeshiyaadka mucaaradka ee sida kooxda shabaab u dagaalamana waxaa la sheegay inaan lagu dabiibi karin isbitaalada ku yaala deegaanada koonfur galbeed waana dharbaxo iyo dhabarjibin lagu sameeyay maleeshiyaadkaasi oo diidan horumarka iyo xasiloonida ka jira deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya si walba ha ahaatee xaaladdu iminka waa ay degan tahay laakiin israsaasaynta ka socota magaalada Buuraha Kaba xaaladdu faraha ay ka bixi doontaa oo iyagu ay isku soo jeesadeen isla markaana laga cabsi qabo inay toos isku farasaaraan haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto dad badan waxay aaminsan yihiin maleeshiyaadkii lagu daabulaya Buuraha Kaba qaar inay isku dhiibi doonaan kooxda al-shabaab qaarna ay isku dhiibi doonaan dhinaca dawladda koonfur galbeed sababtoo ah baadka iyo biyaha iyo rasaasta ayaa laga go'doomiyay waliba aan ku xasuusiyay asgariga ka tirsan maleeshiyaadka mucaaradka ee sida kooxda shabaab u dagaalamana waxaa la sheegay inaan lagu dabiibi karin isbitaalada ku yaala deegaanada koonfur galbeed waana dharbaxo iyo dhabarjibin lagu sameeyay maleeshiyaadkaasi oo diidan horumarka iyo xasiloonida ka jira deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya si walba ha ahaatee xaaladdu iminka waa ay degan tahay laakiin israsaasaynta ka socota magaalada Buuraha Kaba xaaladdu faraha ay ka bixi doontaa reer baydhow seew maay beledee kale walku iideysadaha iid mubaarak yeelile isina walilatiida ol mubaarak gax mubaarak roor mubaarak ridin mubaarak رفعت مبارك حبط مبارك هوبي مبارك باسوك مبارك سبن مبارك ويفت مبارك بك مبارك جك مبارك هو مبارك نو مبارك إلى